بلنتينو واشق بلنتين واشقو بلنتينو واشق بلنتين واشقو إذن بيان شيء وده هذا الفوح يهي سمراي براروغا هاوشا وبريرو ليسعب هذا الروم بحا بلنتينو واشق بلنتين واشقو بيرهو إسرائيل من دمدان بغرا بلنتينو واشق بلنتين واشقو يسعب هذا الروم بحا بلنتينو واشق بلنتين واشقو بيرهو إسرائيل من دمدان بغرا بلنتينو واشق بلنتين واشقو boqol sano midkii jiray wuxuu aada buux sameeyey garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu واشق بلنتين واشقو ballanteenu واشق بلنتين واشقو boqol sano midkii jiray wuxuu aada buux sameeyey garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu واشق بلنتين واشقو ballanteenu واشق بلنتين واشقو سيام مقتليو بحيدريو اوكيو شاليوغا بحنا ballanteenu واشق بلنتين واشقو سيام مقتليو بحيدريو اوكيو شاليوغا بحنا ballanteenu واشق بلنتين واشقو midkadaga bajoobe qabiilka ay ku baasheen sida uga basuudo uga baxa xumaha بلنتينو waa shaqo ballanteenu waa shaqo بلنتينو waa shaqo ballanteenu waa shaqo midkadaga bajoobe qabiilka ay ku baasheen sida uga basuudo uga baxa xumaha بلنتينو waa shaqo ballanteenu waa shaqo 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 بلنتينو waa shaqo ballanteenu soo raac una macal gacan ku siinayo maamulka degmada iyo golaha deegaanka ganacsatada iyo cuqaashana waxaan ka codsananaa inay ayaguna kaalintooda qaataan waa nadaafad waa horumar waa midnimo iyo guul aynu wada gaarayno waxaa inoo ballana guusha soo raac reer Buurtile insha Allah 3 bilood ka bacdigeed in laga waayo qashin guri yaala in laga waayo nadaafad xumo
inaynu dhibaatadayna ku dhacdayna gacan ka geysano aad iyo aad baan u mahadsantihiin daahfurka odayaasha iyo nabadoonnada iyo golaha deegaanka iyo guddoomiyaha degmada Sameeyana waa mahad celinaynaa waxaan isku ognahay waa guul waxaan isku ognahay waa midnimo aad iyo aad baan u mahadsantihiin مدك بيو عيسانو برتمها وبيار القنيان وغدا بالكولا وبريري وارو باهيني وكم غسل وبابا جدا. السلام عليكم ورحمة الله. بدي حولو هيكون بدينو بنحمدك بيو عيسانو برتمها وبيار القنيان وغدا بالكولا وبريري وارو باهيني وكم غسل وبابا جدا. maanta ito sida u jeedaan waxaan u diyaar garownay inaanu daahfurno oo ku dhaqaaqno sidii aan uga shaqayn lahayn nadaafadda degmada Buurtile maadaama aynu ku jirno xilli roobabo qashinkuna uu leeyahay qatartiisu haddii roobka uu soo bato waxaan samaynaynaa sida u jeedaan fiyaalaha magaalada ayaanu ka bilaabaynaa nadaafaddaas runtii abaabulka iyo soo dabaridkane waxaa iska lahaa ururka guusha soo raac dhalinta guusha soo raac oo runtii ah dhalin u soo baxday degmada Buurtile waxaan oran karnaa waa ilays waa iftiin sidaa darteed waanu guul aynu gaarnay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadda iska leh mahadda kalena waxaa iska leh ururka iyo guddoomiyihiisa iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa iyo xogeyntiisa iyo dhammaan xubnaha muhiimka oo runtii ah dhalin u diyaar garowday sidii u horumarin lahayd degmadooda tan kaliyana ma ahayn awalna waxay ka soo qayb qaateen ururintii taakuladii aanu u dirnay Muqdisho runtii waanu sii wadaynaa mana ahan mid joogsan doonta guushaasna waxa weeye guul u soo hoyatay degmada Buurtile waxaanu leenahay shacab weynaha ganacsatada odayaasha haweenka dhalinyarada qaybahooda kala duwan guusha soo raac farintaasi waxay ku socotaa guud ahaan Buurtile guushina waa horumar ay ku tilaabsanayso degmada Buurtile sidaas iyo shaqo wanaagsan waa inoo daahfuran yahay nadaafadayna oo lahayn waan shaqaynaynaa annagaan ugu horeeyna oo aynu qashinka gacmeena wax uga guraynaa waxaanu rajaynaynaa guul iyo Buurtile nadiif ah. لو بريري ومرغ ليس بيرشا مبدأ لغو بليا تعينك أدب يهي وقرين وغادو وكون بريان برواقنا كوكارين وقارين برواقنا كوكارين لو بريري ومرغ ليس بيرشا مبدأ لغو بليا تعينك أدب يهي وقرين وغادو
toddobadii bishii 11 2017 runtii waa maalin taariikhiya oo degmada Buurtile si gaar ah ay u xusay doonto haddii la haydno waa maalin loo istaagay dhammaan dadweynaha reer Buurtile isku duuban oo ay ugu horeeyeen maamulka degmada gudoomiyada kala joogo iyo dhalinyarada mutadawiciinta ah oo runtii taariikhdu qori doonto waxqabadkooda iyo horumarkooda ururka dhalinyarada guusha soo raac waxay maanta ku talaabsadeen ama ay daha fureen ururinta qashinka ama sugidda nadaafadda nadaafad la'aan waa caafimaad la'aan qof kasta waa garan karaa waxaad moodaa inay maanta u istaagtay degmada Buurtile oo isku duuban dhalinyaro iyo maamul iyo odayaal iyo hooyooyin iyo guud ahaan xildhibaano in la iska qaado qashinka waxaan u calaamadinay maanta annaga reer Buurtile maalinta ururinta qashinka iyo la dagaalanka cudurka nadaafadda inaan ka shaqeynaa isu taagnay runtii waxaan aad si gaar ugu ilaahay baa mahad iskale marka koowaad marka labaad waxaa mahadda labaad iskale ururka dhalinyarada guusha soo raac oo sida gudoomiyuhu sheegay wax badan degmada u qabtay lafdhabarna u ah waxay hadda ku qabteen waxyaalo badan oo aan hadda aan halkan kusoo koobi karin laakiin ay ugu dambeysay caawintii dadkii walaalahooda ahaa musiibadii 14 Oktoobar ka dhacday isgoyska Soobe aad bay qayb libax uga qaateen runtii dhalinyarada iyo deegaanka oo isku duwan laakiin horumar iyo hormuud waxa uu ahaa ururka dhalinyarada guusha soo raac waxaan marka garab taaganahay oo naf iyo maalba la garab taaganahay haddaan odayaasha anoo magaca odayaasha ku hadlaya inaanu naf iyo maalba la garab taaganahay dhalinyarada oo lacagta ku bixinayno xoogaya ku bixinayno waa ujeedaan annagii baa qashkii gurayna waxaanu diyaarinahay ilaa magaalada Buurtile aan ka dhigno niyadoo kale inaanu sidaa u wadno haddii la haydno wax kasta oo horumar oo degmadu ay leedahay sida gudoomiyuhu sheegay waa iska midaysanahay waa isku duubanahay maamul iyo shacabba guul baan ilaahay ka rajaynaynaa magaca guusha soo raac ilaahay inuu noo qaadaan rajaynaynaa iyo ururka kaliya ma shaqayn karaan haddaysan dadweynuhu aysan nala shaqayn macnaha aan ula jeedana waxa weeye hadda ka hor waxaanu samaynay godad waaweyn oo aan ugu talagalnay in qashinka lagu gubooto oo la gaarsiiyo masaafana u jira magaalada waxay noqotay godadkii oo maran in meelo ka sokeeya lagu shubo isla markaasina ay saameeyaan baraagihii aagga u dhowaa marka waxaan codsanaynaa gaadiidleyda arrintaasi dhaqanka ka dhigatay inay ka daayaan waxa ay sumaynayaan waa dadkoodii waxa ay sumaynayaan waa carruurtoodii waxa ay sumaynayaan waa guryahoodii marka waxaan ka codsanaynaa qolyaha noohooyinka wata iyo kuwa iska rogooyinka intaba inay ka daayaan bilaa caleeg inay ka daayaan godadkaas sokodiisa iyo meelaha ay xirayaan waxaa kaloo jira togii haddeeraa u dambaysay bishii dhoweyd kaambeynkii ay qayb ka ahayd wall fishing baanu ku bannayna isla markaa haddana shalaanu tagnay barti baa la soo dhigay xaafadaha toga u dhow waxaanu ka codsanaynaa inay ka daayaan toga waa meesha biyaha looga soo dhaamiyo magaalada sidaa darteed waxaan hubnaa qof walba oo gabarkiisa kabiir inuu arrintaasi booliiska oo soo ilaaliyo ciddii iyadoo falka noocaa samaynaysana inay soo sheegaan qof kasta oo soo sheegana abaalgud uu ku farxaanu siinayna haddaan nahay maamulka waxaan laamaha amniga faraynaa oo booliiska amraynaa in tallaabo laga qaado gaadiidkii iyo shaqsigii lagu soo sheego meel aan munaasab ku ahayn qashinkaas iyagoo dhigaya haddii la arko in tallaabo laga qaado maxaa yeelay waxay la dirirayaan nolosheennii iyo jiritaankayagii bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye sida guddoomiyaha iyo xogaayihii hore inoo sheegeen inaynu ka shaqayno nadaafadda magaaladeenna anigoo ah guddoomiyaha ururka noohooyinka jarana qashinka qaada waxaan leeyahay arrintan waa inaannu waa qaadanaynaa wax sida ay tahay baan u qaadanaynaa waxay tahay waa soo dhowaynaynaa waxa weeye annaga kii khaldama oo noohooyinka ka tirsan anigaa laygala xisaabtamaya faraxsanahay hawsha maanta Buurtile ka socota oo quruxda badan waayo waa nadaafadii mar waa bilicdii waddanka marna waa saxadii ummadda iyo saxadii waddanka aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan dadkii ololeeyey kuwii ka qayb galay kuwa gacanta kula jiray waxaan ilaahay uga baryaynaa dambi dhaaf inuu ugu bedelo adduunkana khayr helaan aakhirana cadaabta kaga xoreeyo waanan idinla wadaynaa gacantaana la gelaynaa wabilahi tawfiiq